ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. waxaynu u ballansanayn oo aynu saaka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala kitaabkii koobaad ee afartii kitaab ee usuulka aynu ugu talagalnay oo ah alwaraqaat, kadib markii aynu ka soo baxnay muqadimadii mantiqiga ahayd. cilmigan usuululfiqhiga guud ahaanba ahlulcilmigu raximahum ullahu tacaala sidii u soo baxay imaamu shaafici raxmat ullaahi caleyhi u bilaabay, waxa ay inta badan u qori jireen markaadu laba dariiqo oo kala duwan. qolyaha xanafiyadu, aimada xanafiyadu dariiqo gaara oo usuululfiqhiga ay u qoraan bay lahaayeen. sidaa daraaddeed wuxuu u baahan karaa daalibulcilmigu haddii uu doonayo xanafiyada usuulkooda inuu fahmo inuu si gaara kitaab uga dhigto oo erey bixinta iyo musطalaxaadka ay isticmaalayaan iyo qaabka ay usuululfiqhiga u taqriirinayaan uu arko. saddexda madhab ee kale a'imadoodu usuululfiqhiga inta badan waxay u qori jireen uun qaab isku dhow dhow, iyada oo inta badan qolyo markaa mutakalimiin ahaa oo cilmulkalaamka yaqaanay ama markaa aimo iyo maaragtay waxa weeyaan ku ahaa dad looga dambeeyo ay qori jireen. waxaa aada ugu caanbaxay usuululfiqhiga abubakr albaaqilaani oo garanaysaan, waa ardaygii abulxasan alashcari, imaam buu ku ahaa cilmulkalaamka iyo caqiidada ashaacirada. usuululfiqhigana kutub buu ka qoray. waxaanu noqday saaxib madrasa, nin markaa madrasad u saaxiib ah oo markaa waxa weeye a'imadii ka dambeysay qaybo badan oo ka mid ihi ay ku raaceen. waxaa markaa ka mid ah haddaba a'imada abubakr albaaqilaani dariiqadiisa iyo qaabkiisaasi usuulka u qoray sheekhan waraqaadka leh abulmacaali cabdulmelik ibn cabdillaah ibn yuusuf aljuwayni almulaqab biimaam alxaramayn. imaamkan imaam alxaramayn waxa uu markaa usuulka u qoray qaabkaasi abubakr albaaqilaani raxmat ullaahi calayhi uu u qoray. wuxuu leeyahay markaa 3 kitaab ayuu usuululfiqhiga ku leeyahay. waxa ugu yar kan alwaraqaat ah, waxaa ku soo xiga altalkhiis fi usuul اlfiqh oo isaguna maطbuuca. kitaabka saddexaad baa ugu weynoo waa alburhaan fi usuul اlfiqh, isaguna maطbuuc weyn. kitaabkiisa burhaanku waxa uu noqday markaa kitaab cumdo ah. rag badanna ay markaa ay ariiqadiisii markaa mareen oo ay qaateen. waxaa ka mid ahaa markaa dadkii aadka uga faa'iidaystay ee ku ta'asuray imaam alxaramayn ee usuulka wax ka qoray ardaygiisii abu xaamid محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. كتب badan buu isaga laftiisu qoray, dhowr kitaab. waxa ugu caansanaa kitaabkiisa almustasfaa ee muqadimadii usuulka ee mantiqa ahayd aynu qaadanay, aynu ka soo goosanay. labadaa kitaab iyo 2 kitaab oo kale ayaa markaa dariiqada mutakalimiinta ugu cuslaa. labada kitaab ee kalena iyagana 2 sheekh oo mu'tazila ah ayaa lahaa. labadan sheekh saa arkaysaan waa 2 shaacira ah, 2 mu'tazila ah oo alqaadi cabduljabbaar kitaabkiisa alcumad iyo ardaygiisii
أبو الحسين البصري كتاب كيس المعتمد أفرتا كتاب يا مركا وحا أي النقدين أفرتا كتاب عمدة طريقة متكلمين تعد مركا أصول كأقرت كتبتي كدن بيسينا إيجا أيوم بي مركا أما اختصار كسمينيين أما السجين إيجا مركا تعقب يحيالا نوعاسا أي كسمينيين سيد ابن خلدون مركا أوليه هاي أفرتا كتاب عمدة فنغا أصول كورنبا يعني حتى ما عرفت المتكلمين تكليكم أو خاصية لني وحكادك أفرتان كتاب إن أصول كورنبا أي عمدة ويهين طبعا ده سبب شاقمي وقوميه الرئينين وده كتب كلا كوريسي كتب أبو بكر الباقلاني با كوريسي كتاب كيمام الشافعي الرسالة أيا كسي وده الرئي لكن هضنا يعني كتبتا لاعتماد أصول كاللغة برطو أصول كالله ضبا فرديو أفرتا كتاب بين نقدين يجي بي مركا كسي فرع من كتبتي الضنباكي مركا المحصول لفخر الدين الرازي إحكام كي آمدي هضنا يجي مختصرات لوسي سميي تحصيلكي حاصلكي هذا هلكي با laga sii marka jeexay mukhtasarkii ibn al-Hajib iyo manhajkii Baydawi oo hadana iyagu noqday marka laba kitaab oo cumda ah oo iyaga marka la diraaseeyo marka kadib ayaa hadana Tajuddin as-Subki kitaabkiisa Jam'u al-Jawami'a oo qoray hadana isagu marka aad moodo inuu ku dhawaado inuu nasakho labadii mukhtasar ee mu'tamadka ahaa manhajkii iyo mukhtasarkii ibn al-Hajib xagga waxbarashada kullu insha Allah ta'ala كتبتين الضنباء أيينو ده فاهين كل ما ركتي وحويا والله مناسب كواه مرحلة أينو مرينو أينو تلمام الدونة لكن هذا مقصود كوحوي كتاب كان مركا ورقات وحوي يسقوا كتاب كوبان وصادر كيسان مقع بالشيخ ورقات بو بحيه وراقه ووراقه كوبان وحانو وقلت تلقى لي شيخه إنه نقض مدخل أما الباب يرأو لغا قالوا علم أصول الفقه وقفكوا بالهرطة أبجديات كيسة أما ألف بأديس أصولك ألف بأديسة إنه وقفكوا ومركا كأوغادو مركا كدبنا ومستويات كي مركا الضنباء وسي قدبو سينو شاكني سدح كتابه كلا هوسية أيو شاخو قري يعني واحد مدين واركي بالله يابا إن صدح لا مستوى أرضي وباهن يعني كابلا وقع إيا كتابك دحدحاتك إيا كتابك برهانك دا يساقو مركا وحوي توقر رقمانيا كتاب كان ضبا ورقاته waxa uu noqday isaga laftiisu kitaab marka talabatul cilmiga iyo ahlul cilmiga ay cinaaya siiyaan oo ay ku dadaalaan shuruux badan ayaa loo qoray shuruuxda lafteedina xawaashi baa la sii saaray nadmi baa loo sameeyay waa idinka arkay Imriid raxmatullaahi calayhi marka kitaab cinaaya badan ay gashay weeyi oo yaani waxa weeye ahlul cilmigi ay dadaal badan ku bixiyeen qofka talibul cilmiga muhiim bay u tahay kitaabka uu baranayo ama fanni kastaba saynu sheegnay laba kitaab ama saddex kitaab ama hal kitaab hadii fahankaagu aad u wanaagsan yahay oo jaamica baa kugu filan kutub badan uma baahnid laakiin kitaabkaasi waxa muhiim ah inaad intiqaa ku sameeyso xulatid waxyaalaha marka kitaabka ku xulanayso waxa kow ka ah culimadu kitaabkan cinaaye intee leeg bay geliyeen oo wixii iga hor yimaada kitaabkani عقبضة إيجا هرت مع عضه يا يتشبين يا بربرين يا فرفرية إن المركز قلب كاسي تكون ذا أشياء هذه بمهم متيساد رادد يعني مركز كتاب كري مقدمة وقرد جمعي ما دام وهي كتاب مركز أهل العلم وعناية ظافرها بدن جلية كتاب كان واحد قري إمام كي عصر جيسى مقعي سراين الشيخنا أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري السنبسي أو مركا أها إمام دي وقت جيسي علوم فربدن لو دبي فرديي فنون بدن أيو إمام كوها وحول الشيء أفر بقولي السقالية تبنكي هجرة به وحوها عالم وين وأيمدي الدين نيسابور وحقا برقة لو كي مركا خراسان لو رنش إيران قيبا كميدا إيو maanta noqonaya weey marka Naysaabuur la yiraahdana inta badan marka waxa ama Khuraasaan guud ahaan marka la yiraahdo
afar magaalo ugu waaweynaba waxa kamid ah markaa waxa weeyaan Marwa Shahjaan la oran jiray waana taatan markaa inta badan culamadan maraawisada loo nisbeeyay Marwazi la yiraahdo Naysaabuurna markaa waa uu naaxiyadaas bay haydo iyadana Naysaabuuridani halkaas ayuun bay markaa sheegaysaa in loo nisbeynayo Juwayna markaa iyadu waa markaa qaryadoodii oo markaa iyadana loo nisbey jiray markaa abihi Abdullah ibn Yusuf oo al-Faqih Abu Muhammad ama Sheikh Abu Muhammad caan ku ah inta Shaafiiciyada marka la sheegayo Sheikh Abu Muhammad ayuu caan ku yahay abi markaa Naysaabuur iyo aagaasi sheekh weyn buu ka ahaa aimadii waaweynada Shaafiiciyadana waa uu ka ahaa xagga madhabka Shaafiiciyadana waa rag markaa loo yaqaan asxaabul wujuh macnaheeduna waxa weeye yani waa sheekh markaa heer sare gaaray ilaa markaa uu markaa gaaray heer isagu aqwaasha uu isagu waxa weeyaan masaa'isha ku xukumo madhabkii lagu darayo oo khilaafkiisu maaragtay waxa uu ictibaar yeelanayo oo xataa hadii imaamkii madhabku uu si markaa qarriro isaguna uu si kala qarriro masaladii ay khilaaf noqonayso iyadoo imaamkii Shaafici uu si qarriray hadii isaguna uu si kala qarriro masaladii mas'ala khilaafiya daakhil al-madhhab ay markaa noqonayso oo la oranayo masaladan naskii Shaaficina waa sida wajhi baana ku jira مثلا ابو محمد الجويني وليهاyo khilaafsan sidaas oo sida oranaya marka waa imam mujtahidiin ah madhabka dhexdiisa mujtahidiin ku ah oo xaq u yeeshay inay markaa qowl ama wajhi ay yeelan karaan kuwaas markaa abu محمد الجويني rahmatullahi alayhi oo kamid aha inankiisana sheekh buu ahaayo de waxa weeyaan fiqhiga isaga ayuu ka bartay saadaradeed kitaabkiisa weyne nihayatul matlabka markuu sheekhi yiraahdo wuxuu u jeedaa aabihi oo sheekhiisi aha markii aabihi uu dhintay 438 yani taqriiban 19 jir ayuu noqonayaa qaarkoodna yani 20 jir buu ku dhawaayay waayo 419 bilowgiisii buu dhashay marka isagoo aad 20 jirka ku dhawaaday ayuu aabihi dhintay 438 markii aabihi uu dhintay kursigii aabihi isaga marka waxa weeye la fariisiyay isagoo 19 jira ayaa markaa majliskii isaga loo caqiday culimo waaweyn ay markaa timid oo ka soo qayb gashay sidaas aan markaa tadriiskii ku bilaabay oo uu kula wareegay xalqadii aabihi fi nafsi waqti waxa uu sameyn jiray isagoo de talabkiina ku jira oo waxna baranaya ayuu haddana tadriiskana waday oo aymadii waqtigiisaasi sida markaa Abu Bakr al-Bayhaqi oo de caalim fiqiga iyo xadiiskaba ku horeeya aha ay isku waqti ahaayeen xalqadiisa uu tagi jiray oo ka soo faa'iideysan jiray wana nin kale kelmadda caanka ah للشافعي اما مارته حوي للشافعي على كل عالم منة الا البيهقي اما للشافعي على كل شافعي منة الا البيهقي فله على الشافعي منة يعني امام كستو الشافعي ومذهبك الشافعي هيستا امام الشافعي قلد بو قلي ومند بو كليهي marka laga reebo bayhaqi isaga minad iyo galad kule imaam Shaafici ida sidaatiri imaam al-Haramayn buu ahaa waxaan ula jeeday imaam bayhaqi rahmatullahi alayhi waa kan marka adiladii madhabka kutubta waaweyn ka qoray kitabkiisa weyna as-Sunan al-Kubra waxa weeye adiladii fiqiga oo dhan abwaabtii fiqiga oo dhan ayuu wixii marka ku soo arooray uu keenaya isagoo oo waliba tacliilinayo oo cilashi iyo hawlihiina wada cadeynaya xujajtii marka madhabka de halkaasi waa ka oogay kitaabkiisa kale macrifatu sunan wal aathar isaguna waaba adiladii madhabkaaba ugu tala galay iyo inuu tahawi ugu jawaabo waxyaalaha uu ku qariray macaani al-aatharka marka xalqada waa tagi jiray oo ka soo faa'iideysan jiray waanu ka marka baran jiray cilmi xadiiska iyo de waxa weeyaan culumta kale ee bayhaqi rahmatullahi alayhi oo tadriisinayo waxa kale oo marka usulka uu ka bartay Abu al-Qasim al-Iskaf oo isaguna aymadii Shaafiiciyada ee usulka iyo ku horeysay aha sagana marka sheekhiisi xagga usulka ayuu Abu al-Qasim Abdul Jabbar al-Iskaf oo dawliba isagoo wafaadkiisu ay dambeysay 400 iyo 250 buu dhintay bayhaqi isagoo ka sii dambeeyay 458
intaasba markaa imaamkani waa uu ka baranayay wuxuu noqday markaa isagoo dhalinyar ahba nin sheekha oo dee funuun badan looga dambeeyo kadib muddo markii uu tadriiska waday wuxuu u soo wareegay uu soo xajiyay xajka ayuu yimid xajkii markuu yimid najaawar bimakka yani makka ayuu xaramka ayuu fariistay jiwaar bay oran jireen qofku inuu halka xaramka iska fariisto halka iskaga i'tikaafsanaado de jiwaarku waa i'tikaafkina waa maaragtay mustalahaadka aymada maalikiyadu i'tikaafka jiwaar baaba yiraahdaan mujaawara marka wuxuu iska fariistay marka makka haddana madiina ayuu wareego iyadana uu xogaa joogay saasa marka waxa loogu bixiyay imaamul xarameyn يعني وحوي إمام في الحرمين لبض حرم بإمام بوكا دروسته كودي وحوي علم قاسي أيو كفى فينا يو كنا شرناي إلى 4 سنوات بوتشوجي كدب وهدنا لابتين ونيسابور دب وقلنا قضي نهدنا هالك يوم مركا تدريس كوكبل عام وحمركا إمام كاني علم كان أصول الفقه جا ده إمام بوكي هو ينقع الشيخنا كتاب كيسو سيدا وعمدة وياهي علم فقه جنا إمام بوكو وكان قرأ كتاب كيسا وين نهاية المطلب في دراية المذهب وشرح مختصر كمزني وكورها مركا تاج الدين السبكي ومذ ألف الإمام المذهب الكبير اشتغل الناس بكلامه سيدي هو ألفي إمام الحرمين المذهب الكبير هو نهاية المطلب هي المذهب الكبير لأورنج مذهب كوين يعني وكتابك نهاية المطلب markii uu alifay dadkiiba waxay ku mashquuleen oon isaga hadalkiisi yani culimadiiba ahlul cilmiga waxa mashquuliyay isaga hadalkiisi waxay ku tusinaysaa awoodda uu lahaa kitaabkan waana ka muuqataayo de hadda kutubta madhabka kuwooda sida fiican loo matbaceeyay ee laga shaqeeyay shaqadii ay xaq u lahaayeen ayuu kamid yahay dr abdul azim ad-dib rahmatullahi alayhi ayaa waqtigiisii iyo umrigiisii geliyay أكثر من 20 سنة لبعتن سنة وحكا بدن أيو كتاب كاسي نسخريسة أورورنتيسة يا سجينتيسة يا حق تحقيقنتيسة يا نسكيسة سجديسة وكشقين يي ما أنت مطبعه هنو يالا مكتبه هنو يالا السجع مطبوعة أو قرحون كتاب كاسي وحوي كتاب إمام الحرمين عمري جيسي جليي سيدا ومقدمة كل شيء وكتابه وقلت لك إنه مذهب كنت حريريه فقهنا إنه قنتي سؤال عنه وكتاب أن كلية أهين مسائش الشيء دودي دليل كودا إن الراعيو كلية معه كتاب كان نهاية المطلب وكتاب مسألة والبا سلكي قنتي ودادقية وأبندقية مسائشي لمدك أهين maxay ku waafaqday maxay ku khilaafsan tahay kadibna marka halkaas cilmigii qawaacid fiqh la oran jiray ayaa gundhig u noqday kitaabkiisu soo kitaab fiqhi ah ayaa hadana qawaacid fiqhiyi uu gundhig u noqday waxaynu oran karaynaa Izzuddin ibn Abd Salam oo طبعا marxaladii saddexaad ee cilmiga qawaacid fiqhiyi saddex marxaladood oo soo maray marxaladda saddexaad waxay ka bilaabantaa Izzuddin ibn Abd Salam halka marxaladiisa labaadna ay ka bilaabanto Imaam al-Haramayn marka marxaladan saddexaad lafteeda waxaynu oran karaynaa waxa uu dhaliyay wuxuu ahaa kitaabka nihayatul matlab maxaa yeelay Izzuddin ibn Abd Salam taqriiban 7 walba mar buu dhameyn jiray bay yiraahdeen kitaabka nihayatul matlab 7 walba mar ayuu markaa dhameyn jiray oo markaa wax weyn akhriin jiray da kitaabkiina waa kitaab markaa qawaacidi iyo wax weyn wax fara badan qeexaya taasa ku keentay baynu oran karnaa imaam Izzuddin ibn Abd Salam in uu marka awood u helo inuu shareecada qaacideeyo oo marka kitaabkiisan qawaacid al-ahkam fi masalih al-anam oo qoro idan cilmiga fiqhiga saasu marka imaam ugu ahaayo markii dambana de Ghazali oo isaga ardaygiisii ahaado aan ka agtagin ilaa intuu ka geeriyoonayay 478kii intii uu ka geeriyoonayay oo dhanba la joogay oo isaga uu hoos fadhiyay ayaa markii dambana bilaabay inuu marka kitaabkiisii tabsiitiyo oo uu marka furfuro oo kitaabkiisii marka al-basiit fi al-fiqh oo hadda marka jaamica islaamiga lagu taxqiijiyay laakiin aan wali la matbacaynin ku marka balaariyay oo ku marka furfuray kitaabkan Imaam al-Haramayn wixii ku duugna kadibna haddana
kasii jeexay basiidkii haddana isaga kasii jeexay wajiiskii iyo markaa basiidkaasi ay noqdeen markaa quruuntii dhexe minhaajka ay markaa diraaseeyaan ee ay dee markaa talabatul cilmigu fiqiga ka bartaan marka xaqiiqa ahaan dee kitaabadani waxay ku tiirsan yihiin nihaayatul matlabkii imaam al-haramayn oo marjica u ahaa ardayda sida uu sheegay Tajuddin Subki ardaydii marka ay wasiidku waa kitaabka ay diraaseeyaan wajiiskana waa kitaabka ay markaa xafidayaan wixii markaa wasiidka ka hor yimaada ee ay markaa u baahdaan inay markaa sii qodqodaan oo sii baaraan halkay ula noqonayeen waxay ahayd nihaayatul matlabka iyo basiidka saasoo markaa fiqiga raad weyn oo ugu yeeshay imaam al-haramayn ila yoomina hada nada kitaabkiisu waxa weeye waa bustaan aad iyo aad u cajab badan oo qofku markuu u noqdo ee masaa'isha uga noqdo sida uu markaa uga shaafiyo uu aad iyo aad ugu riyaaqay waxa kale oo markaa loo daba fadhiyay fanniga aqeedada ama cilmu kalaamka oo iyadana uu imaam weyn ku ahaa isagoo markaa tariiqada ashaacirada sheekhu ku tagsanaa waxa uu isbedel ku sameeyay mu'taqadkii ashaacirada oo Abu Hasan al-Ash'ari iyo Abu Bakr al-Baqillani iyo qoliyihii ka dambeeyay Bayhaqi laga soo gaarayo qaabkii ay u taqriirin jireen waxyaalo fara badan buu ka bedelay qoliyaha qaarkood markaa yani waxa ay yiraahdaan waxa uu ka sii fogeeyay markaa dawaahirtii nusuusta in markaa sideedii loo qaato xaqii markaa ta'wiilka ayuu ku sii badiyay oo sifaadkii qaarkood ay sugi jireen ashaaciradii hore sida markaa yadaynkii iyo wajhiga iyo maaragtay waxyaalaha la midka ah sifaatu daad la oran jiray oo ay sugi jireen ashaaciradii cid markaa bedeshay markaa waxa weeyaan sifaadka in iyaga kuwaasna la awilo keentay wuxuu ahaa imaam al-haramayn abu al-maali al-juwayni waxa ajiib ah in imaam al-haramayn isagoo dadaynu sheegnay Naysaabuur ku nool haddana mashaariq al-ard wa magharibaha culamadii ay joogtay ay ku ta'asuraan kutubtiisii isla muddo aad iyo aad u kooban dadka aadka ugu ta'asuray طريقadiisa wax u taqriiriya waxa kamid ah عبد الحق بن عطية صاحب التفسير المحرر الوجيز صادق سونتين تشم بقولي أفرتميه بودنت ما دوري أفرتنكي إمام الحرمين نوح بودنت أفر بقولي سديد تضباطنكي وعن تضباطن سنة هين أما تضباطن سنة والمركب لها نقنية إياه اللي بدو وفاة ودحيسي وحكنا لي عبد الحق ابن عطية أندلس المغرب الأقصى مغرب كيف فوقها بري قلبات كيف فوقها إمام الحرمين ونيسابور وبري حضنا مركز تفسير كيس آخرية يسو قابك مركز قارك وقص صونا قلنا يبا كتاب كيسنا الإرشاد دي عقيدة أشاعرة ضوءة مرجع أوءة وض لتعجب يسا يعني صدا مركز إمام كاني ومركز وقت كوبا كتبتيسي أي مركز أتأثيري سي عالم الإسلامي أوردن عقيدة مركا أشاعرة ولبا إساقو دي ومركا شيخو وحكا بدلك كسميي وحالا يراهضا مركي ضمبي شيخو وكسو لابتي يعني وحوي تأويلكي صفاتك إلهي لأولي علم الكلامكي ماركتي عقيدة الله ماركتي وحوي لقو سليني وكسو لابتي آخر عمريسي وحاو مركا تمنيي إنانو علم الكلامك aanu dhexgali lahayn oo kuna dhimanayo ala aqeedati ajaiz Naysaabuur habraha Naysaabuur yani waa dadka hada iska caamada ah aan iyagu cilmul kalaamkin gelin ee sidooda caadiga ah tabiicadooda caadiga ay sifaadka Ilaahay sugayso iyagii baa koorna dumarka Ilaahay wajiga Ilaahay baa ku dharay Ilaahay baa ka sareeya iyo waxa weeye dadka caadigi su'aalba kama keenaan oo waxan iyaga agtooda yani shay iska fitriye buu ka yahay marka ajaa'ista Naysaabuur aqeedadooda iyaan ku dhimanaya inuu marka sheekhu yiri ayaa tarjumadiisa ku arki kartaan tarjumadiisa waxaad uga noqon kartaan siyar a'lam an-nubala lidhahabi waxaad uga noqon kartaan tabaqat ash-shafi'iyyah al-kubra li Tajuddin Subki waxaad uga noqon karaysaan dhammaan kutubta de taraajimta maaragtay waxa weeye culimadii ka dambeysay ay qortay waa uu ku jiraa inay noqoto kuwa Shaafiicida sida gaarka looga qoray iyo hadii ay noqoto taraajimta caamka ah
wafayaadka ibn khallikan iyo sidoo kale siyar aclaam nubalaaga taariikh ulislaam lidhahabi iyo kuwa kale ee faraha badanba way ka wada helaysaa saynu sheegnay marka imaamka wafaadkiisa ama dhimashadiisu waxay ahayd 478 markii hijradu ay ahayd ayuu Naysaabuur sheekhu rahimahullahu ta'ala oo ku dhintay hal su'aal baa laga yaabaa in la isweydiiyo oo da sheekhu saynu sheegnay mu'taqadkiisu ash'ari buu ahaa isagoo sheekhu ash'ari ahaa hadii marka inaga aynaan ashaacira ahayn miyaynu cilmigiisa ka faa'iideysanaynayo aynu wax ka dhiganaynaa jawaabtu de waaqicaaba ka jawaabayo waxaan u malaynayaa inaanay u baahnaynba in su'aashaasi la keeno maxaa yeelay maanta cid aan imaam al-xarameyn ka faa'iideysanaynin iyo ashaacirada culimadoodii kale ee wax weeyaan faraha badnaaba wixii la isku khilaafsan yahay waa sidiisoo de waa iyagana waa loo cudur daari qofkii ku khilaafsan uu cudur daari oo ayma islaamu de dadaalay bay ahaayeen in markaa ay de islaamka wax weyn u gudbiyeenna u soo gudbiyeenna waxaaba kuugu filan in kutubtoodii ilaa hadda aynu ka faa'iideysanayn marka Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah sida uu ishaaro qofkii ijtihaaday ay si la noqotay waa soo galaya xadiiskii ida ijtihad al-haakim fa asaba falahu ajran wa ida ijtihada fa akhta falahu ajrun waahid ama aqeedada ha noqoto ama fiqhiyaadkii wixii la midka ah ha noqotee hadii qof muslima oo marka waxa weeyaan ahli ijtihaad ah oo marka mas'ala ku ijtihaado si ula muuqato in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dambi dhaafaa wax baciida ma aha oo marka isagana loogu cudur daaro inaynu marka ka faa'iideysano cilmigiisina inaga u baahana isagu uma baahna culimadii islaamka ayaa u baahnaayo ka faa'iideysan jiray marka waa laga faa'iideysanayaa wixii marka khalad loo arkay inuu marka de sheekhu ku tagayna waa isagana waa loogu cudur daaro ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf baa loo weydiin waana lagu khilaafiyo de lagu waafaqi maayo wixii khalad aha waxaynu marka iska bilaabi doonaa muqaddimada kitaabka kulli kitaabku de tabacaad badan waa leeyahay kuwa marka matniga aad baa la isaga matbaceeyaa waxa laga yaabaa furuuqda u dhaxaysaana wax iska kooban inay noqoto oo aan u baahnayn inaynu raahno tabcada ka wanaagsan xagga matniga wax saasa inaynaan uga baahan iyo laga yaabaa kulli sharaxa aynu hadhow toole insha Allah ta'ala say ku xigsi doonana waa istisharxiisa uno Jalaaluddin al-Mahalli sharxiisa ayaynu ihtimaadi doonaa aynu ku xigsiin doonaa markaynu isaga matniga aynu la qabayno inuu saaro hadana sharaxa ayaynu kitaabka labaad ka dhigi doonaa marka sharaxa nuskhad baa jirta akhuna wa saaxibuna Sheikh Hasan Macallim Daawud oo tahqiijiyay 16 nuskhana uu ku tahqiijiyay marka waa runtii waxa oran karaa waa nuskhada ugu mudan kullay maktabada aathar iyo haysay hadii aanu hadda ka dhamaanin marka taas ayaa sharax ahaan u qaadan doontaan insha Allah ta'ala وعلى المصنف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره إلى آخره هذه ورقات بسم الله الرحمن الرحيم بس كيف خبرابي كتبنا هذه ورقات مركا حمد الذي صلي النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ مقرن وكتابكو دصار كيسان وكمرن يحي لكن مركين سنه تاسي in aanu sheekhu ku bilaabin ilaahay xamdigiisa salliga nabiga inuu afka ka yiri baa laga yaaba alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah dadana hadii waraqatun oo qoray waxaanay kamid tahay kitaabka Muzani mukhtasarka waxyaalaha dadka qaarkood ay ku intiqaadeen oo mukhtasarka Muzani alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah kuma bilaabo dawaa kan ku bilaabo waa kitaabkani waxaan kitaab aan ka soo gaabiyay Shaafici cilmigiisii iyo hadalkiisi marka qaarkood ba marka dadka qaarkood ku intiqaaday in aanu marka xamdigii iyo salligii ku bilaabin
marka jawaabo dhowray ka bixiyeen waxaad ka eegi karaysaan muqaddimada maaragtay xaween xaawiga maawardi oo kale waa kaga warrama halkaas muxuu ugu bilaabi waayay ama ina maaragtay waxa weeyaan ku bilaabay ma dhici kartaa oo inta afka uu ka yiri oo haddana uu marka tan qoray marka sheekhana saas oo kale waynu oran karnaa intuu marka afka ilaahay xamdigiisii kaga dhawaaqay nabigana kaleey sallallahu alayhi wasallam ku saliyay inuu marka sidan u qoray ikhtisaar ahaan isagoo u jeedo oo marka wixii wuxuu ugu talagalay marka kitaab aad u kooban inuu noqdo هذه ورقات وورق كورقات وجمع ورقة ورقدنا ده وحاشدة وحاشدي مركا يعني وحو جيدا وهذا الكوبان او يعني وراقو aan ka badnayn ay waraaqo buuxin karaan ka wuxuu marka xaaligu u jeedaa maxalkiina uu itlaaqayo isti'aaray marka noqonaysa يعني وعبارات في ورقات وعبارات كوبان او waraaqo ama xaashiyado kooban marka ku jira marka waraqaat buu cabiray jamcan muannaf saalimku wuxuu kamid yahay jam'ul qillah waxyaalaha marka wax lagu yareeyo ayuu kamid yahay marka waa waraaqo kooban buu noqonayaa tashtamilu ala ma'rifati fusul waxay koobsanaysaa ala ma'rifati fusul min usul al-fiqh in la garto fasallo kamid cilmiga loo yaqaan usul al-fiqh cilmiga usul al-fiqh fasalla kamid ayay marka koobsanaysa ishtamala ala kada ay hadii jeer la yiraahdo in marka ishtamalaad kanto inaad ala ku gudbiso weeysa sheekhu sameeyay hadii aad shamala tiraahdo ama aad shamila tiraahdana toos bay marka mafcuul u qaadanaysa oo hadii ma qoran hadii waraqaatun tashmalu معرفة فصول أما تشمل فصولا وأن لها فصولا من أصول الفقه لكن ما تشتمل يفتعله كياني أي على ذلك قدبي على معرفة فصول من أصول الفقه مركا فصله أصول الفقه كمذا إلا قرته أي مركا كوبسانيسا مركا يد واحد كوبسانيسا وفصل ذي كوبسانيسا معرفة ذي أما قرشة ذي قفكي سجع يا هلا يا مركي ومركا وآخره يدو فصوشي تشتمل على فصول الوي فصوشي مركا ايا مركا ماشي ku jirta macrifaduna way ka dhalanaysaa qofkii markii uu akhriyo uu ka baranay wuxuu bilaabay sheekhu inuu inoo taariifiyo usul al-fiqh muxuu yahay markii uu inoo sheegay in meeshan usul al-fiqh ku qoran yahay ayaa wuxuu ina barayaa usul al-fiqh waa maxay wadaalika buu yiri usul al-fiqh lafdigaasi لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه هذا ويديسو أصول الفقه وامحي أصول الفقه لولا شيء وحان هرتكو شيء بوكليه انت انا اصول الفقه اسكو دمايستران waxa loola jeedo aanan soo gudbinin horta waan ku kala qaadiye usulul fiqh muallaf waa wax marka la isaga geeyay min juz'ayn laba kelmadood mufradayn oo marka mufrad ah oo aan iyagu marka murakab ahayn mid walba sideeda ay marka mufrad u tahay ahaduhuma labada kelmadood mid usul weey wal aakharu kelmada labaadna al fiqh weey usulul fiqh marka ay leenahay buu leeyahay waa murakkab مؤلف يعني هو مركب وواحد يسو تغي ومحو يسو تغي waa laba kelmadood oo isu tagay usul الفقه جزئين يعني waa كلمتين مفردين wuxuu la jeedaa يعني غير مركبتين oo usul markay usul tahay murakkab ma fiqhina murakkab ma murakkab ma macnaheedu la jeedna waa istilaah al-muhada المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه مفرد waxa looga jeedaa waxa hadii aad kala qaybiso aan macnaheedu qaybtiisi aanay sheegayni hadii aad imika kelmadii usul laamka ka jarto ama laamka iyo wowga aad ka jarto soo reeto as ما شيغيسو usuushi qayb kamid ma sheegayso الفقهنا واساس oo kale hada ka goyso fiqdu sheegi mayso
fiqhigii qayb ka mida sheegi mayso laakiin usuulul fiqhi waa murakab iyadu iyo mufrad maaha saadaradeed hadaad fiqhida reebto usuul soo reebto wixii usuulul fiqhi ay sheegaysay macnihii ay faa'iideeysay qayb kamida ayay usuulshani faa'iideynaysaa marka de waa tarkiibkii ifraadkii naxwaha lagu yaqaan marka ifraadka ayaa mushtarak ah oo de macnayaal badan loo isticmaalo mufrad waa timir loo isticmaali jiray wixii aan jamac iyo musanna ahayn sooma ma laysa majmuucan wala musanna wati mufrad la oran jiray marka halkan taa lama sheegayo wada usul waaba jamac ba hadii saa la yiraahdo usul waaba jamac mufrad ba ma aha xaga laga eego laakiin waxa loo jeedaa murakkab ma aha labada eray buu isaga kooban yahay buu yiri wanaga hore u soo baranay marka shay murakkaba lagu barayo hadii jeer mufradaadkiisa horta lagu baro waxaan wuxuu ka kooban yahay lagu baro ayaa de muhiim marka kelmadda usul iyo kelmadda fiqhi buu isaga tagay buu yiri hadana usuushi buu inoo taariifinaya fal aslu buu fal aslu marka hadal baad iska yar go'an aad adigu fahmi karayso wal usul jam'u asl markuu labadii mufradku kala sheegay ayaa hadana waxa lagu sheegay hadaba kelmadda usul waxay jamac u tahay asl oo asal la jamciyay asalkii hadaba waa maxay fal aslu asalka hadaba usul mufradkeeda ihi ma buniya alayhi ghayruhu wa wixii wax kala lagu dul dhiso waxa wax saaska u ah ee lagu dul dhiso ayaa waxa la yiraahdaa asal wal far'u far'una ma buniya ala ghayrihi wixii isaga wax kala lagu dul dhiso wixii isaga wax kala la dul saaro lagu dul dhiso ayaa farc la oranaya marka saaskii hoosana waa asal waxaan ku dul dhisanaa farci buu noqonay oo farcan xagee inaga soo galay taariifkiisu markii asalkii uu sheegay ayaa sheekhu didkiisina oo bididha tatamayizu al-ashyaa wa talayiri shaygu didkiisa ayuu ku cadaada marka si aad asalkii u sii fahanto ayuu macluumo kale kuugu dhameystirayo iyadu daa wixii la taariifinaya aan ka mid ahay ilaa waxa la taariifinaya muxuu ahaa usuulul fiqh baa la taariifinay asalku marka hada usuulkiibu ka soo jeeda farcan maxaa keenay waxa keenay oo waxa la doonayaa in lagu sii qayaxo asalkiyo waxa weeyi lagu sheego marka didkiisi maxaa yeelay ashyaadu marka didkeeda la sheego ayay sii qayaxantahay oo sii cadaata marka waxaan wax ku dul dhisan farac baynu oranaynaa ka lagu dul dhisan yahayna asal baynu oranaynaa saadaraadii usulul fiqh iyo fiqhiga waa talaayado furuuc waxa lagu oranayaa midalan bar'a fil usul wal furuuc wuxuu ninkani xariif ku noqday usulka iyo furuucdaba baad arki marka taraajimta laga waramayo furuucda la sheegaya waa maxay de waa fiqhigi caadiga maxaa yeelay wuxuu ku dul dhisan yahay usuushan aynu halkani ku diraasayn doon wal fiqhiguna waa qaybtii labaad ee marka deereygan la taariifinayay usulul fiqhi معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد iyadoo markaa inaynu yar faahfaahinayno u baahannahay xalqadeena koobaad halkaa ku joogto sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam